السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta bilaabeynaa kooraskeenii taxanaha ahaa buugga saddexaad cashirkiisa koowaad. Marka maanta waxaynu arkaynaa Excel, Microsoft Excel. Microsoft Excel-ku waa programka loogu talagalay in wax lagu xisaabiyo, lagu qorto qaybaha xisaabaadka. waxaad ku xisaabsanaysaa oo badanaa isticmaala shirkadaha ganacsiga. waxaa kaloo lagu diyaariyaa daatada uu xafiis isticmaalo oo inta badan yaa isticmaala hay'adaha dawliga ah iyo kuwa private-ka ah. waxaa kaloo isticmaala ganacsatada qaybaheeda kala duwan. waxa uu ka mid yahay markaa programkani kuwa computerka ugu muhiimsan buu ka mid yahay. Okay, markaa bal waxaynu isku daynaa hadda inaynu soo furanno. waxaad tagaysaa halkii start button-kaaga, kadibna waxaad qoraysaa Excel. Okay, waxa ugu sarreeya markaa fur. marka uu kuu furmo Excel-kaagu qaabkan ayuu kugu furmi doonaa. qaab taqaani ma aha. haddii aad hore u soo aragtayna axsan. haddii aadan soo aragna Excel-ku waa bug xisaabeed qaabkan hadda aad u arkayso. Okay, Word-ka waxaynu ku aragnay qaybtii u dambeysay table-kiisa in loo kala qaadayay table-ka column iyo row. marka column-kii hadda waa kuwan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. kuwaasi waa column-kii weeyaan. 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo kuwaasina waa maxay? waa row-gii weey. column-ka iyo row-gu markaa meel bay ku kulmaan. For example, halkaan taaganahay waa A1. A1 waxay ku tahay waxaan la simanahay 1-ka, waxaan hoos taaganahay A-da. marka waa A1. cell-ka A1 baa la yiraahdaa markaa cell. meesha wax lagu qoray maxaa la yiraahdaa cell. Okay, hoos baan u dhaqaaqay halkii A2 bay noqotay iminka. weli 2 baan ku jiraa. cell-ka maxaan ku jiraa haddana? cell-ka kale A2 baan ku jiraa. A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Okay, marka arrowgaagaad ku dhaqaaqaysaa afartii jihe meesha ku yaalla. ama waxaa kaloo ku dhaqaaqi kartaa tab waata meesha ku taalla qaybta dhinaca bidixda waata keyboard-ka ku taalla ee caps looga ka sarreysa. Okay, iyadana saasaad ugu soconaysaa. haddii marka aad doonayso inaad kor u dhaqaaqdo, waxaad ku dhaqaaqaysaa shift iyo enter. Okay, shift iyo enter ayaad kor ugu soconaysaa. adoo shift xajinaya ayaad enter ku soconaysaa. haddii aad u noqonayso dhinaca bidixdana adiga oo shift haya tab baad taabanaysaa marka. Okay, enter waa hoos u dhaqaaq, shift iyo enterna waa kor u noqo, tab waa dhinaca midigta u dhaqaaq, shift iyo tabna waa dhinaca bidixda u dhaqaaq oo noqo macnaha. Okay, qaybta markaa ka imaado halkan Word-kii unbuu la mid yahay. ardayda Word-ka soo aragtay si fiican buu u garanayaan. Word-kii unbuu la mid yahay. header-kii iyo waa kan text box-kii, word art-gii, qaybaha taqaani oo dhammaantood waa kuwan. Okay, marka haddii aan ka sii socdo halkaa xaggan hoose waxaa ku yaalla sheets waxa la yiraahdo. sheets-ku waa maxay? sheets-ku waxa weeye kuwii aad ku shaqaynaysay. For example, xaggan sheet 1 waxay noogu qoran hadda cell baa noogu qoran, sheet 2 baan tagnay waxba nooguma qorno sheet 2. Okay, boorama aan ku qoro marka. Okay, sheet 2 boorama ay ugu qoran, sheet 3 baan tagay. sheet 3 waxba iguma qorna. Okay, sheet 3 maxaa aan uga arki waayay labadii qoraal hore meesha yaallay? macnaha waxa weeye sheet waa sheet-ka meesha ku yaalla. For example, haddaad book akhriyayso oo waraaqda soo rogto, wixii aad akhriyayso uu qarsoomaya. sala ajigeeda kana waa sidoo kale. wixii hadda ku qornaa halkan uu qarsoomaya marka aan sheet 2 tago. sheet 2 wixii ku qornaa baan arkayaa. haddaan sheet 2 ka tagana wixii ku qornaa labadaba way iga qarsoomayaan. Okay, see magaca looga bedelaa markaa. waxa looga bedelaa sheet 1 bayna magaca ka bedelaynaa. right click baad leedahay. kadibna waxaad tagaysaa halka ay rename ku qoran tahay. waxaad u bixinaysaa markaa, waxaad u bixinaysaa dugsiga waayahay aye aadan isaaq soma. Okay, kana maxaan u bixinaa? waxaan u bixinaynaa isagana allaale general trading. kana maxaan u bixinaa? waxaan u bixinaa Amir company. Okay, saddexda sheet baa meesha noo yaala. haddaynu u baahno kuwa kale waynu soo gelin kartaa. cadalada ka soo gelinaysaa calaamadaas ayaad ka soo gelinaysaa kuwa kale dheeriga ilaa intaa doonto. Okay, sees kaga saaraysaa marka kuwa dheeriga. right click haye delete, right click delete. Okay, sorry, right click sheet-ka aad doonayso right click odhanaysaa kadibna delete baad leedahay. sheet-ka aad doonayso right click leedahay kadibna delete baad leedahay. sheet-kan doonayaan hadda saalay haddana magaca ka bedelay kadibna rename baan leeyahay. Okay, rename. marka hadda iga delete. saddex sheet baa ii yaala. saddex sheet
hadda registration baan ku shaqeynaya labadan kale inaan hide gareeyaan rabaa marka Amir iyo Allaale see loo hide gareystaa loo qarsadaa right click baa la yiraahdaa kadibna waxaad ku jiidaysaa hide ii qari right click baad leedahay kadibna maxaad ku jiidaysaa hide okay ii qari marka shaqadii dugsiga dhameysato date aan ku bilaabo halka hadda okay name baan ku xijisiinayaa program baan ku xijisiinayaa waxaan ku xijisiinayaa time waxaan ku xijisiinayaa amount waxaan ku xijisiinayaa paid okay see loo qurxiyaa marka waxaad ku dhex jiidaysaa halkan ay ku qoran tahay maxay date ilaa maxaad soconaysaa ilaa paid ka soconaysaa kadib waxaad leedahay farta ii waaweynaya marka hore okay see farta u waaweynaya waxaan ka dhigayaa 16 boldina iga dhig colorna iga bedel mid kasta meesha soo leekaysiinaysaa halka ay column-ka hadii aad weyneynayso column-ka ee afkiisa aad istaagaysaa marka calaamadaas ku soo baxdo qabanaysaa kadibna aad weyneysanaysaa column-ka b hadaan weyneynayo halka baan istaagayaa kadibna saasan weyneysanayaa okay hadii aan doonayo column-ka c inaan weyneeyo ugu qoran yahay programku afkiisa aan istaagayaa kadibna saasan u balaarsanayaa hadii aan weyneynayo time-ka isagana sidoo kale ka dul istaagay marka calaamadaas sii soo baxdo halka baan tagayaa okay for example hadii aad wax qoraya doonayso inaad weyneyso ku soo bixi maysa calaamada weyneyntu ilaa aad ku jiido halka click kadib waata calaamadii soo baxday saan u jiidanaya xagana marka soo istaagaya kadibna saan u jiidanaya okay waa kaas saan u qurxistay han soo qurxiye marka kan ma rabo waxaan rabaa inaan sheetkayga kala la soo baxo okay an hide baan leeyahay kadibna Amir baan la soo baxaya okay baan leeyahay kanaan hadda iska qarinayaa okay kadibna maxaan la soo baxayaa kii hore aan ku deysanayaa Amir baan shaqadiisii hayaa marka for example qorayaa 12 xagana waxaan ku qorayaa 2 okay halkan waxaan ku qorayaa 3 halkan waxaan ku qorayaa 8 ama 9 iga dhig xagana waxaan ku qorayaa 10 okay xagana waxaan ku qorayaa 5 okay tiradan aan doonayaa marka inaan maxay ka dhigto inaan ka dhigto automatic isku kaygaan qaabka la isku keenay inaan arko okay labadana inaad isku geyso aad doonaysaa si automatic alt okay labadana isku geynaya marka saasaan soo highlight gareeyay kadibna alt anoo xajinayaan maxaan taabtay equal maxay noqotay 9 12 okay labadana isku geeyay hadda saasaan soo highlight gareeyay kadibna alt anigu xajinaya baan equal taabanaya xisaabtada dhimanka saar isku geeyay okay hadii aan doonayo kuwana isku geeyay iyagana oo halkan soo dhigto maxaan sameynayaa waxaan tagayaa salkayga ugu sareeya ee A1 C1 ilaa ma ka ugu hooseeya kadibna waxaan taaba okay soo raaci marka equal adoo xajinaya altadii equal taabo marka okay adigoo xajinaya equal taabo 41 okay ku soo celiyo marka le waxaad doonaysaa inaad saddexdan tiro isku geyso oo wadartooda guud hesho halkaas oo dhigto marka okay saasad soo highlight gareynaysaa halkaad ku daraysaa marka halka lagu dhigay aad ku daraysaa okay saddexda waxba igu qoran halkana way masaxan tahay marka waxaan doonayaa saddexdan in la isku soo geeyo dadna halka la soo dhigo okay adigoo xajinaya altadii equal taabo marka maxay noqotay tiradaadii 41 okay hadii aan saddexdan marka inaan isku geeyaan doonayo maxaan sameeynaa iyagana sidoo kale okay 5 طبعا isu geeyntooda buu markii hore la isu geeyo oo san bay taagantahay hadda waa taas samarkaysid okay marka qaabkaas aad u isticmaalaysaa okay qaabka kale aad u isticmaali kartaa haddaan ku soo celiyo tan waxa weeye iyadana waxaad u isticmaali kartaa qaab kale halkaas aad istaagaysaa markaad labadan soo highlight gareyso waxaad tagaysaa qaybtan ay ku qoran tahay formula okay okay kadibna waxaad tagaysaa halkan ay ku qoran tahay sum automatic auto sum suuqay macnaha automatic suuqay okay waka automatic baan suuqay 14 labadana soo waxay automatic baan suuqay waka labadana san soo iri kadibna automatic baan suuqay waka okay okay kuwan marka hadii aan soo highlight gareeyo iyagana on automatic suuqay ka yiraahdo waka isagana oo la geeyniya marka keyboard-kaagana waad ka isticmaali kartaa inaad si automatic isku geyso waxa kale oo ka isticmaali kartaa xagan toolskaagana waad ka isticmaali kartaa toolskana waad ka isticmaali kartaa keyboard-kaagana waad ka isticmaali kartaa okay marka maanta intaas aan ku soo gabagabeynaya